السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجكيني Global Security waxaynu ku eegi doonaa aynu kaga jawaabi doonaa insha Allah nidaamka ugu wanaagsan ee uu qaadan karo wadankeenu Somaliland uu qaadan karo maadaama aynu hore u soo sheegnay waxa la yiraahdo dimuqraadiyaddu in aanay ahayn wax ku haboon dalkeena iyo dadkeena isla markaana aanay ahayn ba xalka kaliya ee adduunyadu ay haysato maanta ee la mahadiyay nidaamyadii caalamka soo maray haduu yahay wax loo yaqaano shuuciyada haday tahay waxa la yiraahdo capitalismka iyo dimuqraasiga iyo waxyaabahaas oo dhan waxa la soo tijaabiyay waxa la ogyahay dimuqraadiyadda oo maanta ugu dambeysay caalamka hadana inaanay wada buuxin baahiyihii bani aadamka isla markaana xataa aqoon-yahanadii aynu soo sheegnay ay sheegeen in aanay faa'iido u lahayn wadamada isticmaalaya waxa loo yaqaan dimuqraadiyadda ee dadka qaar ay xagga dambe ay riixayaan oo ay bushkareynayaan sidii loo hirgelin lahaa marka dadkeena si ay dawladoodu ay better life ugu raadiso ama nolol wanaagsan system noocee inaynu qaadano ayaa haboon aynu kaga hadlaynaa haddii marka aynu doonayno in wadankeena uu horumaro waxaynu u baahannahay inaynu iska dayno nidaamka dimuqraasiga ee ka yimiday wadamada reer galbeedka kaasoo aanan ku saabsanayn dhaqankeena iyo diinteena horena aan uga soo hadalnay qaabka ugu fiican hadda aan ka fikiri karo xilligan waxa weeye nidaamka la yiraahdo bureaucracy waa nidaam aan madaxda wadanka aan sida dimuqraadiga loo dooranin laakiin la soo xulay waa selection waxana lagu soo xulay kartidooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda ayaa lagu soo xulay bulshadana laga soo xulay sidii barigii ugu horeysay markii la dhisayay Somaliland ay waxa weeyaan dadka Somaliland ay iska soo xuleen dadkoogii waxgaradka ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee xaaladda lagu sugnaa ee mugdiga ahayd ka saari kariyay ee loo arki kariyay inay ka saari karaan marka waa in la sameeyo selection baarlamaanka la soo dooranayo waxa ka haboon in electionka lagu bedelo selection maadaama qaab aan wanaagsanayn lagu dooranayo lacag iyo qabiil lagu dooranayo laakiin marka waa in baarlamaanka guriga sare waa in la soo xulaa oo laga soo xulaa odayada dhaqanka laga soo xulaa iyadoo loo eegayo aqoonta culture-ka dhaqanka ay u leeyihiin edabtooda iyo akhlaaqdooda sumcaddooda sida ay ku yihiin deegaankooga ee dadka ula macaamilaan la eegayo jaarka say ula macaamilaan iskuulka say ula macaamilaan waxa weeyaan publica wadanka say ula macaamilaan wadaniyadoodu heerkay taagan tahay waa in waxyaabaha la eegaa okay qolada baarlamaanka ee lower house-ka waa in loo eegaa iyagana loo eegaa qualification loo eegaa waa in laga soo xulaa markaa dadka aqoonyahanka laga soo xulaa dadka sumcadda leh professorska waaweyn ee waxa weeyaan de meel sare ka gaadhay aqoonta dhakhaatiirta looyarada in laga soo xulo injineerada in laga soo xulo qolada loo yaqaano political scientists qolada cilmiga siyaasadda khubarada ku ah qolada social activistka laga soo xulo dadka laga soo xulo iyagoo la eegayo markaa sumcaddooda iyo waxa weeyaan wadaniyadooda iyo waxa weeyaan daacadnimadooda iyadoo la eegayo marka laga soo xulo waa in markaa laga dhex doortaa madaxweynaha laga dhex doortaa marka oo labada goloba ay doortaan madaxweynaha ay doortaan madaxweynaha markay doortaan madaxweynaha ay kula xisaabtamaan marka
waxa weeyaan sharciga waddanka u degan ay kula xisaabtamaan. waxa iyadana meesha habboon in laga saaro waxa loo yaqaano 4.5 laga saaro oo public service-ka waxa la yiraahdo dadkan madaxda ah ee la dooranayo ama la magacaabayo wasiirada ku-xigeenada agaasimayaasha waxay bixinayaan wax la yiraahdo public service, yacni waa dadkii bulshada u adeegayay. mar haddii dadkii bulshada u adeegay yihiin waa in la yiraahdaa hawsha qofka loo dirayo yaa qaban kara un la yiraahdo. hadday doonaan ha ka wada yimaadaanba hal qabiilba boqolkiiba boqolba hadday doonaan ha noqdaan qabiil keliya hadday doonaan iyadoo marka hore aanu ahayn ku talagalku in qabiil keliya laga dhigo. hadday waxa soo baxayba qabiil keliya noqdaan dhibaato ma laha. isla markaana aanay cidiba ku andacooninba ama aanay ku doodinba annaga waxba lanama siinin qolada reer hebel haddaan nahay waxba lanama siinin. marka waxa weeyaan ciddii la doortayna ee la xulayna ay u adeegto markaa ay noqoto dad awoodeedii kartideedii iyo aqoonteedii leh, daacad ah, ka maran qabyaaladda, ka maran eexda, isla markaana ay daacad ka tahay inay hawshan ay dadka u qabtaan. marka waa in waxa wanaagsan in la mamnuuco waxa loo yaqaano 4.5 ama habka qabiilka ee ay Soomaalidu wax ku qaybsanayso in la mamnuuco. ta kale qoladan ama groupkan la salagareeyay la xushay dowladdan ka dhalatay waa in ay markaa gacan bir ah ku qabataa markaa cid kasta oo ka soo horjeesata waxa weeyaan wada noolaanshaha iyo wadadii lagu gaari lahaa horumarka ummadan lagu gaari lahaa. waa in markaa la samaystaa yoolal waaweyn oo number 1 ka ah in qabyaaladda la baabi'iyo oo laga bilaabo miidiyaha dadka soo fadhiista weliba dhalinyarada u badan dhalinyarada hadda ku soo biirtay ee leh anagoo reer hebel oo dhalinyaradii reer hebel waxaan rabnaa tusaalahan way yaraan isla markaa way baaba'aysaa in markaa wax laga qabto oo la mamnuuco in miidiyaha ay qola soo fadhiisato reer soo fadhiistaan go'aanka dadkan la salagareeyay markaa ay gaadhaan. markaa maxay taraysaa democracy markaa waxa ma tarayso waayo shacabku markay wax dooranayaan maaha xilligay wax dooran kareen may gaadhin. shaqada ugu weyn ay qabanayaan qoladan bureaucracy-ga ah waa maxay? waa dadka in ay u diyaariyaan muddo 20 sannadood ah dadkan inay wax dooran karaan. marka dadka loo diyaariyo dad bisil oo dantooda garanaya oo raba inay ku doortaan qofka ay dooranayaan, yacni cilmi aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo ku dooranaya. markaas waa in markaa dadka loo diyaariyo inay noqdaan inay markaa dimuqraadiyad qaataan. dimuqraadiyadda oo ah markaa dimuqraadiyad ku dhisan dhaqanka iyo diinta islaamka ku dhisan sida waddanka Iran oo kale. waayo dimuqraadiyaddaasi waxay ilaalinaysaa xuquuqda dadka muslimiinta iyo dadka waddanka ku nool hadday doonaan muslimiin bayaanay ahaanin xuquuqdooda ilaalinaysaa, dhaqanka ilaalinaysaa, diintana waa ilaalinaysaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.